kulanti wacan daawadayaal. Qofka aad u jeedaan waa qof isaga oo cabsan soo hor istaagay masjid. Waxa uu doonayay in uu soo galo oo salaada uu tukado, balse sida ay dadkani ay arkayaan, qofkani waa qof khamraysan ama soo cabay. Waxay u diidan yihiin wadaadada masjidkan in uu gudaha soo galo, balse imaamka ugu weyn ee masjidka ayaa ka dalbaday wiilashan in uu gudaha ninkani uu soo galo. Waxa uu la dagaalamayaa labadii wiil ee iyagu u diidanaa in uu gudaha u soo galo. Hadda gudaha ayuu soo galay ninkan, waxaana gacanta ka haya imaamka weyn ee masjidkan. Arrintan baraha bulshada ayay maalmihii ugu dambeysay si aadaha ay u hadalhaysay amaba loogu soo bandhigayay, waxaana ay tahay ninkan isaga oo qamraysan ayuu soo galay masjidka. Dhowr daqiiqado oo loo diidayay waxa u suurta gashay in loo ogolaado masjidka in uu soo galo. Markii dambe waa loo weyso qaaday sida muuqaalka idinkaga muuqata, oo imaamkii weynaa ayaa u soo weyso qaaday oo ay wada tukan rabaan. Ragga sheekaysanaya waa raggii markii hore ka hor istaagnaa in uu gudaha u soo galo masjidka. Salaadii ayay wada xiranayaan. Ninkii khamraysnaa ee Ilaahay soo hanuuniyey ee dib ugu soo laabtay in uu masjidka uu salaada ku soo tukado. Ninkan markii hore waxay u diidanayeen soo gelista masaajidka, balse Allah waxa uu qadarayay in isaga oo salaad tukanaya ama sujuudsan uu Allah xaggiisa u laabto ama uu geeriyoodo, sida muuqaalkan aad ka arki doonto qeybaha dambe. Hadda waxaad u jeedaa weli imaamkii iyo ninkii khamraysnaa ee hadda loo soo weysqaaday oo weli salaada ku jira. Daawadayaal, inta muuqaalkan uu socdo oo aad daawanayso, fadlan waxaad nala wadaagtaa aragtidaada iyo dareenkaaga adiga oo sii sheer garaynaya muuqaalkan. Waxaynu arki doonaa dhacdada masaajidkani ka dhacday ee hadalhaynta badan dhalisay ee baraha bulshada maalmihii ugu dambeysay sida aadka u hadalhayeen. Waxaa la gaaray sujuudii koowaad ee salaadii ay wada tukanayeen. Ninkii isagu khamraysnaa masjidkan loo diidanaa inuu soo galo, balse markii dambe u suurta gashay. Waa kan dhacdadii ugu xumayd ama dhibaatada badnayd ama murugada lahayd. Ninkii waxa uu ku geeriyooday sujuudda labaad, oo uu soo kici la'yahay, naftii ayaana ka baxday. Sidaas Ilaahay waxa uu u qadarayay in qofkani uu hanuunka u la doonay in uu u geeriyoodo ama uu ku geeriyoodo masjidka ama beytka Alle. Waxa dhici doona kaliya Allah ayaa og. Ninkanna intan waa uu qamraysnaa, balse masjidka ayuu dib ugu soo laabtay. Ilaahina waa uu soo hanuuniyey, isagu sujuudsan, Allihii abuurtay u sujuudsan ayuuna geeriyooday. Imaamkii salaadii ayuu ka baxay. Ninkii ayuu ka warhayaa amaba uu ka war doonay. Hala fiiriya ayaa la yiri waxa ku dhacay. Waxaa la ogaaday in ninkii uu geeriyooday, sida muuqaalka idinkaga muuqata. Wuxuu sheegayaa in ninkan aysan wax nafa ku jirin uuna geeriyooday. Hal isku aadiya ayaa la yiri, hana la diyaariyo ama boqol masjidka gadaal kaga yaala in la geeyo ay isku raaceen. Ninkii imaamka weynaa iyo sidoo kale mid ka mid ah raggii hadaatay diidanaa ninkan in uu gudaha u soo galo masjidka. Wiilashii ayaa isku aadinaya ninka oo u diyaarinaya in ay goob gadaal ay geeyaan, ayna qoyskiisa ay arrintani ay la socodsiiyaan. Tani waxay cashar ay nooga filan tahay in Alle uu og yahay amaba Alle uu wax walba isagu awoodo. Qofka uu hanuun u la doonana uu soo hanuuninayo. Waa kuwan wiilashii iyagu iska oonaya ninkan hanuunka Ilaahay la doonay ay ka celin waayeen.